soo dhawaada saaxiibada ku xiran page-kan waxaan doonayay inaan wax yar idinka sheego dalkan aan maalmihii dhawaa ku suganahay ee Maldives oo ka mid ah dalalka Asia gaar ahaan dhinaca koonfureed ama south-ka uga yaala qaaradan Asia ummado badan oo kala duwan oo adduunka dalxiis uga yimi ayaa yimaada dalkan oo meelo kala duwan ka yimaada waxa la sheegaa in dhaqaalihiisu guud ahaan ama intiisa badanba ku tiirsan yahay arrimaha la xiriira dalxiiska kumanaan qof ayaa yimaada bil walba oo cadaan iyo madowba leh oo guud ahaan qaaradaha dunida ka yimi inagu waxaanu ka soo degnay halkan garoonka diyaaradaha magaalada Mayli ee caasimadda waddanka oo laf ahaanteedu jasiirad ah dalkan waxaa la sheegaa ilaa dhowr boqol oo jasiiradood inuu ka kooban yahay oo yaryar inkastoo inta waaweyn oo markaa tirsan ama magaalooyinka ay ku yaalaan aysan tiradaas gaari karin dhowrka boqol ah guud ahaan waxyaabaha lagu kala safro ama gaadiidka lagu kala safro gudaha Maldives way ku yar yihiin gawaaridu waxaa la oran karaa waa dal kale gawaarida ugu yar adduunka oo aan gawaariyaba ka shaqeyn sababtoo ah waa wada jasiirad oo qofkii doonaya markaa inuu safro oo jasiirad kale uga safraa wuxuu u baahan yahay inuu laba midkood qaato ama uu qaato waxa la yiraahdo doomaha yaryar ee markaasi speedka ah oo inuu ku safro oo ku tago meesha oo jasiiradda uu doonayo ama uu qaato diyaaradaha yaryar ee helicopter-ka ah ee baddana ku dhex tegi kara markaasi jasiiraddana sidoo kale ku dhex tegi kara inuu qaato jasiiradaha loo dalxiis tagaa labay u qaybsan yihiin qaybina waa jasiiradaha loogu talagalay inay yimaadaan dadka internationalska ah oo aan ahayn dadka dalka u dhashay dalka caalamiga ah ama dalalka shisheeye ka yimi inay tagaan loogu talagalay ee dhaqaalaha haysta ee markaasi kara inay hoteelada qaaliga kiristaan xeebaha ku dalxiisaan sida qaaliga ah looga shaqeeyay ama waxyaabaha qaaliga ah adeegyada qaaliga la dhigay qaybina waa locals baa la yiraahdaa waxaa loogu talagalay dadka localka inay ku dalxiis tagaan ama dadka aan karin markaa inay lacag qaali ah ku bixiyaan jasiiradaha qaaliga oo waa meelo raqiisa guryaha ay raqiis yihiin ama hoteeladu sidoo kalena imkaaniyaadka laga heli karaana ay yihiin kuwa raqiis ah haddaad marka doonaysid inaad jasiiradda Maldives aad timaadid jasiiradaha raqiiskana waa tegi kartaa kuwa qaaligana waa tegi kartaa inagu hadda waxaan degnay jasiirad la yiraahdo Paradise Island Resort Island oo ah mid aad iyo aad u qurux badan kuwa dadka internationalska loogu talagalay dabcan inay tagaan ka mid ah aad iyo aad bay qaali u tahay tan haddaad buugkeeda adeegtid ama buugka ka eegtid waad arki kartaa qiimaha lagu degi karo iyo hoteeladeeda iyo waxa la midka ah waan rajaynayaa maalin walba soo booqatid waad aragtid halkan waa guryo ku dhex yaalla xeebta badda dhexdeeda ayay ku dhex yaallaan halka ayaa kiraysanaysaayoo aad iska seexanaysaa habeenkii adigoo biyihii xeebta ay hoostaada saas u marayaan waxaynu qorsheynaynay markaynu dalka nimi inaanu samayno waxa la yiraahdo inaanu guud ahaan dalka ku wareegno oo aanu duubno muuqaalo kala duwan meelaha historicalka ah iyo wax kastoo xog ah oo la xiriirta dalka inaynu baahino balse nooma suurtagelin sababtoo ah dalku uu kala xiran yahay koronihii awgees oo lama tegi karo jasiirad kale ugama talaabi kartid tad dalxiiska u timo uun baad joogaysaa oo maalmahaaga dhan ku qaadanaysaa dabadeedna airportka ka aadaysaa marka koowaad aad dalka timaadana airportka lagaa soo qaadaya jasiiradda aad ku socotid uun baa lagu geynayaa dhinac kale uma dhaafaysid waanu jeclaan lahayn dhabtii inaan la wadaagno muuqaalo kala duwan oo aan kasoo duubnay guud ahaan jasiiradaha quruxda badan ee dalkani uu caanka ama gaarka ku yahay noomase ay suurtagelin taasi waa idinka raaligelinaa koronahaada dabcan taas khasab ka dhigay waxyaabaha kale oo saaxiibada page-kan ku xiran ama baraha kale ee internetka aan sawirada soo dhigayay igala soo hadlayay ilaha war dalkan nooga soo waran ee aadka u xiiseynaya waxaa ka mid ahaa sida lagu iman karo dalkan ama sida qofka Soomaaliga ah uu dalkan ku iman karo dadka Soomaalida ah ee dalalka kale joogay adduunka ee baasaboorada kale haysta dabcan in badan oo kamid ah way u fududahay inay dalka yimaadaan oo baasaboorradooda ayaa u fududeynaya inta aan karin oo dalalkooda ay khasab tahay dalkan inay fiisi soo dalbadaan fiisi soo dalbanayaan dabcan laakiin waxa warka farxadda leeyahay in dalkan marka dalkeena aad ka imanayso ama passport Soomaali aad ku safrayso fiisihiisu uu free yahay oo on arrival-ka waxa loo yaqaan yahay ama marka garoonka timaado lagu dhifanayo lacagna laga qaadi kaliya marka dalkan marka imanayso saddex wax oo muhiim ah jira oo u baahan tahay midka koowaad waxa weeyaan inaad samaysato waxa la yiraahdo inaad horta ticket haysato inaad haysato travel insurance waxa la yiraahdo ama ilaahay ma keenaa hadii wax ku dhacaan wixii dabcan aad isku maareyn lahayd ama lagu maareyn lahaa inaad travel insurance aad leedahay
tan kaloo muhiimkaahina waxa weeye inaad haysatid booking inaad samaysatid hotel booking inaad samaysatid oo meesha aad tegaysid iyo package-kaaga dalxiis oo dhan inaad booking galaysatid saddexdaa arrimood ayaa ugu muhiimsan haddaad doonaysid Maldives inaad timaadid oo passport Soomaali aad ku safraysid. bookinku dabcan waa qof walba oo passportka doonto hayso, laakiin labada kale ayaa ugu muhiimsan oo dabcan aan idin sheegay. guud ahaan dalkan Maldives waa dal aad iyo aad u yar marka taariikhdiisa aan dib ugu noqono. waxaa la sheegaa 300 kilomitir oo isku wareeg inuu ka kooban yahay. tirada dadkiisu waxaa lagu sheegaa 500 kun oo qof, adigu tira aan wax badan ka badnayn. sidoo kale waxyaabaha cajiibka ah oo aan intaan joognay aan kala kulannay Maldives waxa kamid ah inay adag tahay inaad qof Soomaaliya ku aragtid dalkan. aad iyo aad bay u yar yihiin. dabcan waxaan isu arkaynaa hadda Soomaalida kaliya ee Maldives joogtay inaan nahay, maadaama intaan jasiiradda joognay iyo garoonkaba aanan ku arkin wax Soomaali ah. waan rajaynayaa Soomaalidu inay soo buuxiso ay ka mid noqdaan dalxiisayaasha dalkan ku nasta maalmahooda holiday-ga ee imanaya ama honeymoon-ka ku qaadanaya ama waxyaabaha la mid ah dabcan u imanaya nasasho la xiriira. waxyaabaha kaloo cajiibka ah waxaa ka mid ah dalkan haddii ilmo kuugu dhasho dalkaa doonto ka imow, waxaa muhiima ilmahaas in magac islaam loo bixiyo. waxyaabaha qariibka ayaan hadda maqlay ayay ka mid tahay intaan dalkan ku sugannahay. sidoo kale carruurta waddankan lama baro wax international ama geography ha ahaato ama international history ha ahaato. waxa uun la baraa waxa dalkooda quseeyo oo kale keliya ayaa la baraa. guud ahaan waxyaabaha khaaska ah oo garanaysaa dalkan lagu arki karayo oo sidoo kale aynu la kulnay wax ka mid ah tan hore soo sheegay oo ah inaadan wax gaari aadan ku safri karin intaad joogto dalkan. marka laga yimaado gaarigan yar oo hotelkani maadaama uu weyn yahay, gaarigan yar ayaa wuxuu yahay gaariga loogu kala safro. waa dhowr gaari badan oo noocan ah joogto loogu kala safro qaybaha hotelka. haddaad lugaysid ma gaari kartid, sidaa darteed waxaad ku khasban tahay inaad gaarigan qaadatid oo cadida ku yimaado. jasiirad walba waxa ku yaal hal hotel oo weyn. halkaa hotel dabcan looma kala lugeyn karo, way adag tahay in loo kala lugeeyo oo tuulooyinkeena yarar oo kale ayaa jasiirad walba leeg tahay oo ma garanaysaa hotelkaasi markaa leegahay. marka waxaa u baahan tahay gaarigan yar ee aan saaranahay oo kale inaad qaadatid markaad doonaysid inaad jasiiradahan aan idhaahde qolalka iyo meelaha iyo maqaaxyaha iyo meelaha quruxda badan ee hotelka inaad u kala safrtid. hotelkan gaarigan ayaad qaadanaysaa aan idhaahde. waxaa sidoo kale jira dukaamada yararka ah oo iyagana laga helo waxyaabaha loogu talagalay xusuusaha oo kale ama dharka agabyada lagu dalxiiso oo kale oo ay dharka ka mid tahay dabcan kuwan aan qabo hadda oo kale ayaad ka helaysaa. iyo wixii aad rabtid xusuus inaad u qaadatid oo mustaqbalka aad ku xasuusatid socdaalkaaga Maldives. waxaan u malaynayaa in uusan jirin haddaad muuqaalkan daawato wax macluumaad oo badan oo kaaga dhiman Maldives iyo booqashadeeda. waxaan isku dayayaa intii aan karo oo kale inaan wixii macluumaad aan la soo wadaago. wixii aad su'aal qabtaan ee la xiriira Maldives iyo xogteedana hoos baa igula soo wadaagi kartaan ama commentiga si aan intii aan karo aan idinka qabto idinka Ilaahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.